walaal Axmed baa leedaniga Axmed oo sidoo aragta dagaalkaynu la galnay al-shabaabta isku duubnidii shacabka iyo booliska sideebad u aragtaa dagaalkaas guud ahaan dagaalka guul ahaan horta guul weyn ma ka gaarnay dagaalka sababtoo ah inaan ka qayb qaadano oo shacabkeeniyo dawladdeena oo isku duuba inaan ka qayb qaadano waa qasab mar walba oo laga maarmaan shacabkii dawladda haddayna isku duubnayna wax suurtoobaya ma jiraan waxa ma suurtoobay marka dagaalka guul weyn baan ka gaarnay isku duubnidii baan guushaas oo inaan ku gaarnay baan aaminsanahay maanta magacayga waxa la yiraahdaa Farxaan Cabdi Axmed looma kala hadin shacab iyo dawlad baa looma kala hadin si cad baa looga hortagay waxa la yeeshay mabda adag si ay argagixisadu macnaha gudaha say noogu soo galin waxaan laga hortagay meeshii ay joogeen baa loogu tagay oo lagu soo baabiyay marka waxaan oran lahaa aad buu ugu mahadsan yihiin ciidankeenu kartida ay muujiyeen iyo shacabku hiilka uu muujiyay labadaba baaritaan horta intan sanne xukuumadda 4 sano jirto mise intii ka horreysay horta baaritaanku waa lagu silcin jiray dadka baaritaankan dambe askarigii itikiski isagoo leh iyo si fiican kuula hadlayaa edabtii leh sida askarinimo soo leexu ku leeyahay u imanaya qofka shacabku anaguna aan ku garab taaganahay aad iyo aad baan ugu garab taaganahay baaritaankuna aad buu wanaagsan yahay horta markii hore isbedel baa jira horta isbedel baa dal guud ahaan ka dhacay isbedelka guud ahaan ka dhacay bahwadaag wax la oranayay kaad iminku waxa jira bahwadaag mehe waxaagiiba downad wixii ka dhimanaa ee deegaankeena ka dhimanaa kuma taagna wali waan wadaynaa isbedel weyn uu jira waqtigii hore waxba loo yeedhin jiray imkasta waxba lagu yeedhinayay adaa lafaaga wax qabsanaya adaa xukuumadda soo dhisanaya adaa wax walba soo sameeyay awalse wax walba oo lagu keenayay waxaan sameeyay lagu xukuumaddii hore tan aad bay u kala duwan yihiin imika maadaama dawladda dhexe xubno muhiim ah ku leenahay inaan ka sii badano waan jeclaan lahayd xukuumadduna dadaalkeeda muujiso dagaalkii in lagu guuleystay baan u arkaa waan ka guulaysanay baan leenahay argagixisada dhibaato waxay dadka Soomaalidu ku baraarugeen arinta xamar ka jirta iyo dabaqyada qarxaya iyo 70 ruux maalin walba dhibaya arintaas anagoo dhagta ka sii wada maqallo idaacadda ka wada dhageysanay arintan dhacday waan isdifaacnay marka waan ka guulaysanay baan leeyahay hawsha marka arinta baaritaanku si fiican bay u socotaa waana arin maartay laga guulaysanayo cadawga wixii soo galana waa la qabanayaa kulli halka waxaan arkaa seemi fara badan oo hadda ka hor inaga maqnaa inuu hadda inoo soo kordhay seemiga faraha badan wasiiraha ka dhex muuqda waxa ka dhex muuqda xisbiga bayna xubno sarsare ku leenahay wasiir ku xigeen fara badan baa ka dhex muuqda laakiin waxaan leeyahay waxa inoo harsan agaasimayaashii iyo waaxihii kale ee shaqaale hoosaadka ah baa inoo harsan baan leeyahay weli heerkeennii maynaan gaadhin heerkeennii aan gaadhnaan leeyahay waxaan ka barannay isku duubnida muhiimadda ay leedahay baan ka barannay haddii shacabka iyo ciidanku mayna u kala hadhin lama odhan karo dagaalkii oo ciidanku galay buu ahaa laakiin dagaal loo midaysan yahay oo gabadha iyo hooyada iyo wiilka iyo aabuhu u midaysan yihiin buu ahaa marka arrintaas maartay isku duubnidu qaaliga ay leedahay iyo qiimaha ku fadhideen ka barannay baan leeyahay walaal magacaygu waa Bashiir Maxamed Xaaji Axmed dagaalkaasi wuxuu ahaa dagaal si gobonnimo leh ay ciidanku tallaabo u qaadeen oo ay guulo fiican ka soo hoyeen oo aanan helin ciidan saas oo kaleetay macnaha inoogu halgamo inoogu dagaalamo inaan helin baan u arkaa oo cadowgiina lagaga adkaaday baan u arkaa waxaa la isu baaraa si fiican oo sharci ah oo macnaha dad wax bartay sidiisii oo kale ay dadka u baarayaan oo nidaam leh oo taxadar leh oo shacabka dareenkiisa la ilaalinayo ayaa dadka loo baaraa marka waan u hambalyeynaa qaabka fiican ay u baarayaan qaabka fiican ay nabad u sugayaan gabdho iyo wiilalba ciidanka ah shaqadoodii way haystaan si fiican ba shaqadoodii haystaan alxamdulillah waxa weeye kaalin fiican weeyaan markii hore Soomaaliya baynu ahayn laakiin imika Itoobiyana xukunna ayaan wax yar u jirnaa tallaabo step yar aynu qaadno baynu ra'iisul wasaare ku noqon karnaaba marka meeqaan fiican baynu hadda taagannahay meeqaan macnaha lagu daydo oo dadku ay macnaha ku arkaan inaynu Itoobiyaba xukumi karno oo lagu dhiirrado ayaan arkaa marka ma sha Allah aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa nidaamkaas kow dagaalkii horta waxaan ka barannay isjacayl baan ka barannay innaga ma saqoonin markii hore innagii as barannay innagii baan noqonay dad walaalo ah innagii baan noqonay dad isku ehel ah marka waxaanu noqonay dad isku duuban oo hal tallaabo wada qaadaya oo hal amar kala wada qaadanaya oo wada ciidana baan noqonay markoo ciidankana waxaan leeyahay haliyada liyuuge sida haadka duule hawadaas maraaye ka cadgoosta halistow miyaanu helaynaa kuwa idin laheero baan leeyahay waxa kaloon leeyahay ciidanka haddaan nahay hareertiina taagnaa cid kastoo rumaaji iyo hadalhayn idin haysa hog annagaa ku ridiyo walle idinkaba horreyn baan leeyahay al-shabaab waxay isku dayeen inay soo weerartay deegaanka annaga
laakiin waxaan ku dhignay taariikh lama ilaawana casharna way ka baran doonaan dowladaha kale casharanaha naga bartay maxay ahayd sida Soomaaliya oo kale hadda Soomaaliya gobolka Hiiraan oo kale casharaanta naga barteen bay ku dhiiranayaan marka waxaan leenahay al-shabaab wejiga koowaad aan ka guulaysanay laakiin isku day labaad ay samaysto casharkii oo kale un baan u dhigaynaa anshax wallahi aad buu wanaagsan yahay habeenkii baaritaanka kolley boqolkiiba boqol baaritaanku amniga deegaanka caadi u sugan yahay waliba caasimadda Jigjiga gaar ahaan doorkii dhowid nimankan argagixisada ee shabaab ay soo weerareen deegaankeena ciidamada liyu booliska iyo dadka deegaankeennu sida qiimaha iyo qaayaha leh ee awoodda leh ay uga qayb qaateen ee ay u jebiyeen yaa nimanka argagixisada ee shabaab wax ay noqotay wax ay bulshadu ku diirsato aad iyo aad waan soo dhaweeyay waan garab taaganahay heel iyo hoolo waan la garab taaganahay had iyo jeer waxa weeyaan waa dadaallo soo kordhay weeyaan waxa weeyaan maalinba maalinta ka dambaysa bulshada Soomaalida ee ku dhaqan kilka shanaad waxaad moodaa in ay la soo jaan qaadayaan dawladda federaalka iyo sidii ay ugu dhex milmi lahayn taasina waa guulo ay gaadhay dawladda cusub ee hadda ka arrimisa kilka shanaad ayaan leeyahay waxa weeye wax kastayba ka hortagga ayaa ka wanaagsan daaweynta waxa weeyaan ka hortag ayay ka mid tahay in ay ciidamadu amniga sugaan inta aanay fidna dhicin ka hor in laga sii hortago aad iyo aad baan ugu hambaleynayaa qaab dhaqanka ay u baadhayaan waxa weeyaan sidii waafaqsanayd ee lagaga hortagi lahaa wixii dib soo wada anshaxa ay nool dhaqmayaan waa si sax ah weeyaan marka anshaxoodan aad buu u hagaagsan yahay akhlaaqda wax walba waa caadi si fiican baan u arkaa oo aad iyo aad u fiican ciidanku suulna aad buu noo ilaaliyaa nabadgelyadana wuu eegaa wixii ka soo hor jeeda iyagiyo madaxweynaha midna ma doonayno ninkii waddanka ku dhashay baanay anugu madaxweynuhu wuxuu noo taray cid noo tartiba ma jirto degaankana waan ahay cidda ka soo hor jeeda ama ma garanaysaa fadeexad iyo maxalyahay iyo borobogaan waddana ma doonayno waa iska qaqabanaynaa si fiican bay noo baadhaan namana dhibaan waxay ma garanaysaa nabadgelyada ka soo hor jeeda dee umay ma garanaysaa ka baadhaan waxay dhibaato ku sameeyaan iyo waxay waxyeello ku sameeyaan iyo waxay dhibaato ku sameeyaan midna ma jirto aad iyo aad baan ugu fiicannahay